dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in karantiil 14 maalin ah ay marinayaan dadka dalka imaanaya muddada dib loo fasaxay duulimadyada caalamiga ah. Yunus Duran Ali ayaa warkan faafahintiisa inoo haya. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay maanta liiska wadamo dadka ka imaanaya la karantiilayo muddo 2 toddobaad ah haddii ay dalka soo gaaraan. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda ayaa waxaa lagu sheegay in muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka socoto 14 dal inay imaanayaan dalka kuwaasoo ku xaniban garoomo ku yaala caalamka. wasaaradda ayaa tilmaantay in dadka ka yimaada dalalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus kala ah Shiinaha, Yurub, Mareykanka, Koonfur Korea, Australia, Canada, Turkiga, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Malaysia, Sacuudiga iyo Koonfur Afrika la karantiilayo maalinta ay yimaadaan dalka ilaa muddo 14 beri ah. dhinaca kale warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa imaanaya iyadoo dawladda federaalka ay muddo 2 maalmood ah fasaxday duulimaadyada dalalka caalamka kadib markii cabasho ka timid muwaadiniin Soomaaliya oo ku xayiran garoomada diyaaradaha caalamka. warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo ku taariikhaysan maanta ayaa waxaa lagu sheegay in muddo 2 maalin ah dib loo furay duulimaadyada sabab la xiriira cabasho ka timid dad Soomaaliyeed oo ku nool caalamka. bishan 19keedii bisha March 2019 waxaan joojinay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee wadanka yimaada ama ka baxa. alxamdulillah way dhaqan gashay arintaas wax diyaarad ah oo timid Soomaaliya ama ka baxday oo international aaday ma jirin dhowrkaas cisho. hase yeeshee waxaa jira dad Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xaniban garoomo kala duwan oo adduunka kuwa ugu badan wadamo dariska ah ay ku xayiran yihiin. qabashadooda ayaa mudana soo gaaraysay waxay ku jireen hoteelo qaarkood hoteelada ay iyaga iska bixinayaan ayay ku jiraan marka waxayna u soo socdaan wadankoodii. qaar waxaa jira wadamada ay ku xayiran yihiin aanan loo ogoleen in ay wadanka gudihiisa galaan. dalalka Talyaaniga oo kale iyo Shiinaha iyo Iiraan muwaadiniinta jooga iyagu ku jira sida la socotaba wadamadaasi qofkii jooga waxaa lagu waaniyay in ay joogaan diyaarado nooga iman karana ilaa iyo hadda ma jiraan laakiin case by case basis ayaan u fiirinayna. waxaa jira guidelines ay soo dejiyeen wasaaradda caafimaadka oo qofkii wadamadaasi soo maray ee Soomaaliya yimaado quarantine lagu gelinayo 14 cisho. cudurka coronavirus ayaa haatan dunida waxa uu ku hayaa faraba'an. Somaliland ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeysay in ay khalkhal amniga hawada ay ku wado garoomada diyaaradaha ee maamulkaasi. Ilyas Cabdi Cali ayaa warka faafahintiisa inoo soo diray. xukuumadda Somaliland ayaa maanta markii horeysay sheegtay inay xor u tahay hawada Somaliland iyo inay shaqeeyaan madaaradeedu kadib markii 2 maalmood ee la soo dhaafay aanay iman wax diyaarado taasi oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay diyaaradaha caalamiga ee imanayay madaarada Soomaaliya. maareeyaha hay'adda madaarada Somaliland Maxamuud Cabdi Rodol oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay khalkhal gelinayso duulimaadyada caalamiga ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. maanta war-saxaafadeedkan waxaan ugu talagalnay inaan kala hadalno airspace-ka Somaliland. waxaan maanta halkan anoo maariyay guud hay'adda duulimaadka iyo madaarada aanu ka sheegayna airspace-ka Somaliland waxa uu xora Somaliland cid kale loo wadaagtaana ma jirto. sida aan xeebaheedana mas'uulka ay uga tahay dhulkeeda ay uga tahay xuduudeeda ay uga tahay. waxaa jirta wax ka dhaxeeya adduunka internationalka ah oo xitaa innaka iyo jaararkeena iyo Soomaaliya iyo inagu xidha. arrintaas oo imika ka muuqata Muqdisho inay isku daysay inay khalkhal geliso. waxaan u sheegaynaa adduunka oo dhan iyo diyaaradaha yimaada Somaliland inay Somaliland ka mas'uul tahay oo kaligeed iska leedahay. ayada nabadgelyadeeda ka mas'uula inay oggolaato Somaliland diyaaradda degaysana haduuna maareeyo ogolaan ma soo degayso. hawada annagu ma doonayaan xubno hadaa yiraahdo hawada Somaliland maanta inay soo iman oo lootaanka gelin kaligeed iska leh. waxaan u sheegaynaa adduun weynaha iyo dadka oo dhan inaynu jaarnimada waanu ilaalinaynaa wada socodka adduunka khalkhal gelin may la
laakiinse sharikad alliyaala sharikaddii doonaysa way u furan tahay haddii aanaan si gooniya aanna kuuga joojin oo waxaa jirta qaar aanu sii daynay oo cudurkan dee imika aanu ka boqonayn waddanka kaasna mar hore aanu sii daynay marka intaasuu maan doonaya meeshaan ka sheego diyaaradaha Ethiopian Airline Fly Dubai Air Arabia oo iman jiray deegaanada Somaliland maalin kasta ayaan iman maalmihii la soo dhaafay iyadoo ay saameyn ku yeelatay go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xakameynayso cudurka corona ee ay muddada 14 maalmood kaga joojisay deegaanada Soomaalidu ay degto inay diyaarado caalami yimaadaan hase yeeshee diyaaradda Ethiopian Airline ayaa maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyadoo xukuumaduna ay sheegtay inay sii socon doonaan shaqooyinka iyo duulimaadyada ka socda madaarka Hargeysa xukuumadda Somaliland waxa ay sidoo kale sheegtay inay joojisay duulimaadyadii ka iman jiray magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kale iyo dalka Kenya arintaasi oo ay sheegtay in aanay dhaqaatiir la isku haleyn karo aanay joogin deegaanadaasi isla markaana xanuunka corona awgii ay u joojisay muddo bil ah in duulimaadyo ay ka yimaadaan magaalooyinka Nairobi iyo sidoo kale magaalooyinka Soomaaliya Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ay sideen xabsiyada dalka soo gaarsiin shaqaale caafimaad si loo baaro dadka gudaha u galaya xabsiyada Xanad Maxamed Karaama taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay soo gaarsiin labada xabsi ee ku yaala magaalada Muqdisho howlwadeenada wasaaradda caafimaadka si baaritaano ay ugu sameeyaan dadka galaya goobahaasi si looga hortago cudurka dilaaga ah ee coronavirus oo haatan dunida dhib badan ku haya taliyaha Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa wasaaradda caafimaadka ka codsaday in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo shaqaalaha caafimaadka xabsiyada dalka dhinaca kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa sheegay in maanta laga bilaabo aysan jiri doonin muddo 2 toddobaad ah in la soo boqdo xabsiyada dalka si looga hortago cudurka dilaaga ah ee coronavirus weli waxaa naga maqan oo nala soo istaagin nimankii wasaaradda caafimaadka dadkii ka socday oo baaritaankaas lahaa weli nooma imaan namana soo gaarin marka caafimaadka waxaan u sheegaynaa inayna soo gaarsiiyaan dadkaas takhasuska u leh ee caafimaadka looguna talagalay oo lana sheegay inay meeshaas istaagayaan oo wax baarayaan dadka inayna soo gaarsiiyaanaan codsanayna maalintii shalay ahayd waxaa amarna la siiyey nagula siiyey in aan joojinno booqashada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo SBC labada xabsi oo Muqdisho hadda maanta maxaabiista lagu hayo labadaba in booqashada laga joojiyo iridana ay fariistaan caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna ay dad keento iridda ayaga laga gelaayana la fariisto cid kasta oo askariga meesha ka shaqeeya waardiyahan ha noqdo oo meesha gelaysana in la baaro caafimaadkaana baaraaya waxa amarka nagula siiyey waa midda ayada muddo 2 usbuuc ah oo loo qabtay macnaha ka hortagga dalka waxaa la sheegayo jirrada in 2 usbuuc la joojiyo waa 4 maalmood oo booqasho ah taasuna diyaar baan u nahay waanu qaadanay amarkaas waana sheegnay waana fulinay wayna socotaa hawsheedii maalmihii dambe waxaa sare u kacday cabsida xooggan ee laga qabo cudurka coronavirus ciidamo fara badan oo Ethiopian ah maanta waxay buux dhaafiyeen magaalada Doolow ee gobolka Gedo Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan si anba qaadaya wararka idaacadda kulmi ay ka helayso magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaas ay soo buux dhaafiyeen ciidamo tiro badan oo ka tirsan kuwa Ethiopia dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in gudaha magaaladaasi ay buux dhaafiyeen ciidamo ka socda wadanka Ethiopia kuwaasi oo wata gaadiidka dagaalka waxayna xarumo ka sameysteen garoonka diyaaradaha magaaladaasi sidoo kale meel duleedka ka magaalada Doolow ee gobolka Gedo ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in maamulka gobolka ay soo dhaweeyeen waxaana la sheegay inuu hogaaminayo taliyaha xasilinta gobolka Gedo ninka lagu magacaabo Bakaal Kooke ciidamadan Ethiopiaanka oo maanta gudaha u soo galay magaalada Doolow ee gobolka Gedo
ayaa waxay maalintii shalay ahayd ka soo baxeen magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya iyadoona xalay ay ku hoydeen magaalada Diridhaba ee dalkaasi Itoobiya maantana ay gudaha u soo galeen Soomaaliya xiriir aan la sameeyay mas'uuliyiinta gobolka Gado ayaa inoo suurtagal weysay inay ka jawaabaan wicitaanadeena si aan wax u weydiino ciidamadan Itoobiyaanka oo gudaha u soo galay qaybo ka mid ah gobolka Gado kuwaasi oo maalintii shalay ahayd ka soo baxay dalka Itoobiya wali wax warar kama soo bixin dhanka dawladda Soomaaliya oo ku aadan ciidamadan ka socda dalka Itoobiya oo soo gaaray gudaha Soomaaliya qaaliga guud ee muslimiinta Kenya ayaa dhaliil u jeediyay hogaamiyaasha islaamka oo aan u hoggaansamin amarka ka soo baxay dawladda Kenya Maslax Abubakar Xaaji qaadiga guud ee muslimiinta dalka Kenya Ahmed Muhdar ayaa si kulul u cambaareeyay muslimiinta qaar ee dalka Kenya oo aan u hoggaansamin amar ka soo baxay dawladda dhexe ee Kenya oo ku aadan in la yareeyo kulamada dad badan ay ka soo qayb gali karaan si loo yareeyo inuu faafo cudurka corona oo kiisas ka mid ah lagu arkay dalkaasi muslimiinta ayuu si gaar ah ugu eedeeyay inay diideen inay xiraan masaajida isla markaana salaada jimcaha ay oogeen iyadoo dalkaasi cabsi badan ay ka jirto quraanka waxa uu farayaa mu'miniinta inay adeecaan Allah nabiga iyo waliba hogaamiyaashooda waa inaan gurigeena ku tukano si aynu dhibaato uga baaqsano waana sida nagula taliyay inaan sidaasi sameeyno ayuu yiri isagoo carro aad u xoogan ay ka muuqatay hadalka qaadiga guud ee dalka Kenya ayaa imaanaya xilli maalin ka hor culimada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku nool gaar ahaan xaafadda Islii ay si cad u sheegeen in masaajida aysan xiri doonin ilaa iyo dawladda ay amar rasmi ah dul dhigto waxaana shacabka ay ugu baaqeen in aysan ka baaqsan ku tukashada masaajida waaweyn ee guud ahaanba dalka Kenya ku yaala dhegeystayaal wargaabeena waxay ka imaanayaan shabakada wararka ee kulmiye laba ka mid ah ciidamada waddanka Ciraaq ayaa geeriyooday kadib markii lagu qaaday weerar bambaanooyin ah waqooyiga gobolka Lambar ee waddanka Ciraaq sarkaal u hadlay xoogagga Ciraaq oo aanay magaciisa la shaacin ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida laba askari iyo afar kale oo dhaawac ah weerarkan ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay magaalada Rutba taasoo ku taala galbeedka gobolka Lambar ilaa hadda ma jirto cid si dhab ah u sheegatay weerarkaasi lagu qaaday ciidamada qalabka sida ee waddanka Ciraaq waxaase jirta in dawladda Ciraaq ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen dagaalkaasi dagaalmayaasha Daesh tan iyo 2017 ayaa waxa ay gacan buuxda ay ka helayaan ciidamada Ciraaq dalal badan oo Mareykanka horboodayo waxaana horaantii 2019 looga itaalay roonaaday dagaalmayaasha Daesh oo dalka Ciraaq